reaction kii ka dhashay ama dadku in fikir maxaad kaaga soo noqday in markii dadweynuhu ay ka hadleen muuqaalkaas sheegtay inuu si khalad u baxay والله دقود قف بس بقوا الله dadkeena Soomaaliyeed waxaad moodaa inay shaqadii malaa'igaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo u idmaday inay horta kaga horeeyaan iyagu oo qabanayaan Ilaahay dhulkiisa isaga koonkiisa abuurtay dadkiisa abuurtay laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwiim Ilaahay qofkii turjumaana Ilaahay uma baahna qofkii markaas xumaan arka ama wax ka dhiidiya waxa ku haboon oo kaliya inuu kaga hadlo si ixtiraam leh tarbiya leh bini aadamtinimo leh aqliisan aqoon ku dheehan tahay oo maskaxda dadka bini aadamka oo maskaxda waxa wanaagsan in la furfuro laakiin maskaxdaadu haday hal meel aragto oo hal wax ku dhigto dhibaatadeeda ay leedahay marka dadkeena Soomaaliyeedna runtii waxa dhihi karaa mar allaala markii ay qofka khalad ku arkaan khaladkii ay qofkii ku ciqaaban iyagoo admoodina adduunka loo soo diro leeyihiin dadka ku ciqaaba qofkiina marka dadka intooda badan oo dalmarow inta cariiqsadaan bay yiraahdaan madiinta laga leeyahay waa maya ma dalka laga leeyahay waa maya ma Soomaalnimada laga xiga waa maya ma dhaqan ba laga xiga waa maya hadaba wax ka daran buu qofkii ku fikiraa laakiin anigu taawan ka duwanahay subhanallah inta aan joogay oo ama aan joogay wallahi inta boqorti laaban dib uga baxay waana la qaatay heestaasuna hees kadisay ahayd waxaan leeyahay Ilaahay turjumaan uma baahna adoonkii Ilaahayna laba dhex gale inagu ixtiraamkeena bini aadanimo iyo iska lumin deeqa markaad ka reebto reaction ka dhashay adiga naftaada wax khatar ku ah oo ama dil lagu hanjabay heestan haato ama heesa ka horreeyba haato iyagana maxaad ka leedahay thank you dalmaro walaalo waxa jirtay heestan horta dad badan baa wax ka bixiyay waxaana u sheegayaa dadkii heestan ka falceliyay oo commentiyada khaldan ka bixiyay ama sida khaldan uga hadlay ama hanjabay dad badan baa hanjabay waliba qoraal igu soo hanjabay waxaan leeyahay horta dhamaantiin waa ida cafiyay sababtan idin cafiyeen waxay tahay waxa la yiri biyo meel godan waxa wax ka bilowdeen oo wax hawsheedii wax ka bilowdeen aniguna cudurdaar baan ka keenay tan waana tilaabadeena dib baan uga baxay in allaale intii heestan ka falcelisayna cafa aliye masaabax bay iga yihiin haddaan sii wata hadalkayga waxaa jirtay dalmarow in cajilad la iigu hanjabay hadda ka hor 2 sano ka hor horta aniga noloshaydii horta anigu media anoo ka calacalaya ama anoo wax ka sheegaya ama anoo maxaa la yiraahdaa problem ka hadlaya lama arkin laakiin waxaan ahay gabadha kaliya oo Soomaaliyeed oo 2 sano dad aysan aqoonin garanaynin waxay yihiin waxay ka rabaanna ayaan garanaynin ay u hanjabayeen waxa jirta videogaas dalmarow adigana waan ku tusay asxaabigu dhown waan tusay booliska Sweden waan tusay waxa jirtay 2 nin oo indhaha soo duubtay oo runtii 2 indhood ba iska soo xireen baaskoolad buu muday hal mid baaskoolad gacanta ku haysta midna halkan buu ag fadhiyaa kan baaskoolada haysta hadlaya wuxuu leeyahay naya deeqa heesta biir noocaas oo aad soo gelisay YouTube-ka oo magacaas leh waxa aad ka waday haddaad sheegi weydid biir dhowr saacadood gudahood baaskooladii buu furay 4 xabadood baa ku jirtay wuxuu yiri 4 xabadood iyo qaar kalaba inay kugu soo maqan yihiin ogow biir saasu xog buu baaskoolada u xiray fiidiyowgiina wuu damiyay ajaradii baan qaaday 3 qof baan tusay
booliiskan u geeyey arrintii way ku jiraan xitaa leyrka ay isticmaalayeen iyo qaabkii baa lasoo saaraya dadkan wax ka qarsoomaya male adduunkan igu soo yaacayo ma jirto bilaash qof la iskaga hajabaya ma jirto marka gabar maantay 2 sano hanjabaad ku socon karto oo maskiina ee fanaanada ee maxaa la yiraahdaa waxa inta yarta isku qoondaysto video iska soo saarto oo fan aan cidna maxaa la yiraahdaa in madaxweyne ku garab taagnayno dawlad lahayno maxaa la yiraahdaa ku fangareynayno adduunka caalamka markaan la kulmo fanaanada qaarkood ama aan arka xitaa wallahi marka qaarkood waan ooyaa meesha fanka Soomaalidu ka taagan yahay ku ooyaa fahmaysaa marka intaas anagu rakarooni ku soo saarnay heesaha inta badan aan sameeysta kafee yaraantan soo shubtaa heest aniga laygu haysta baan samaystay tan hadda nimanku igu hajabayeen aan samaystay marka 2 sano gabar haday jirto Soomaaliyeed oo hanjabaad ku socotay oo la aamusneed haday jirto bilis la soo xiriirgelin bay noqonaysaa waliga kama hadlin laakiin I have to deeqa in afro imika in hanjabaad naftaada aba kugu timi sidaynu ognahay sharciyadan western ka degantay waliba dalalka Scandinavian ka haweenkana xuquuqdooda aad loo ilaaliyo in videogan ugu dambeeyay ee aad soo saartay hadii uu u gacan galo in media-da European ka ama Scandinavian ka oo ay soo bandhigaan Facebook iyo social media-da intii qof ay kugu hanjabtay waxa dhici karta inay u isticmaalaan propaganda ka dhan ah Soomaalida iyo muslimiintu inaanay ahayn dad la qabsan kara wadamada Scandinavian-ka oo kale oo la oranayo inantan bal eega waxay sameysay waa inta in jirkeeda soo bandhigto intaasoo hanjabaadana way ku timi adigu hadii ay kula soo xiriiraan diyaar miyaad u tahay inaad noqoto ushii lagu garaacay dadka Islaamka iyo Soomaalida may walaalo may taas ma noqonayo ilaahay baana ka magan galay ilaahayna waxaan ka rajeynayaa amuurahayga sida kale inuu igu fududeeyo anagu wadankan waa deganahay sharciyan ka haystaa Swedish baanahay guriyada waan ka haystaa shaqo yarna waan aadaa wax inta ka badan ugama baahni waxyaalahan isla dhaxyaacayaan oo dadka qaarkood u hawoodaan aniga qof u hawoota ma ahi anigu markaas ka duulaya damiirkayga qadiyadeed qofka aan anigu ahay waxyaalaha iga suurtooba waxyaalaha aan u dhinto qofku waxa jira meel uu u dhintaa jirta sababtoo anigu qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa qadiyadeyda iyo dhaqankayga waa ku dhintaa heesahayga xitaa waxay u badan yihiin dalmaro heesaha jacaylka anigu way igu yar yihiin intaas waxa dhaqan Soomaaliyeed baan ka hadlaa fahanti ummad meel ku nool Afrikaana baan nahay dad Islaam baan nahay wax ka hadlo wax sheegay dadka kale intay heesay rabaalka iskaga mashquulsan yihiin anigu waxaan hay baan bandhigaa fahanti waxa weeyaan taana igama suuroodo noloshayda adduunka intaan saarnaana oo inta aan wadankan joogayna booliis hal maran albaabkiisa dega markiina cajiladii anoo wada iyo telefoonkayga ma tagay hanjabaadahayd waligeeyna meelahaas ku arka ma ilaahay lama kulansiyo marka inaan haddana maxaa leeyahay arrimahay u geeyo ama Soomaalideena waxa anigu waa iska cafiyo waxa la ii dhiman waa cafiyo laakiin wixii aniga hadda in record garaysan ee aniga sida goonida igu hanjabay meel bayaalan taas adduunka hadda daa'irada waa cafiyo xitaa idiga yeelayso qoladaas male sababta kuwii 2 sano kor kuwii haddana waa iska cafiyo wax hadda dambe oo aniga aan dad cadaan ugu tagiyo ama la caawiyo dhibaato xagga aniga haysatay waan seexan kari waay ma aha cajiladii maalintii aan u geeyay 2 sano ka hor bay ahayd waliba 2 sano way ka badneen dhowr bilood baan aftay ilaa hadda ila soo xiriiraan okay ma tahay maxamed walwasha ma baqda waxaasna ma jecel waxaan ku yiraahdo aniga afaarahayga halkaas ku ekaada faad arada la soo xiriirta dhibaato arka marka anigu taasaan u jecelayn ba afaarahayga waxayga iyo ma fahmaysaa haddaan ka badan waayo of course shaqada waa la kala leeyahay haddaan amni xumo dareemo anigu waxaan ku khasbanahay inaan u tago inaan hala caawiyo of course ila tabarka lama haystee laakiin caadi ahaan inaan anigu hawlahayga waxaan dhex Soomaalida dhexdeeda aan anigu runtii aan iyo dhibaatadan aniga hadda ay haysata inaan ula tago hadalkaaga dhigiisa waan fahmaya walaalo waan ku mahadsantahay inaan Soomaalida ula tago lagama yaabo inaan Soomaalida inta ka kaxeeyo ajnabi geeyo indho haleegala caawiyo lagama yaabo
fahmaysaa absolutely marka saale waxay taanu dadkayga iyo dhaqankayga iyo diinteeda waan jeclahay marka dadkayga leeyahay dalmarow waxa soo galaya dad oo waxa soo galaya muslimiina soo galaya oo kala wadanka inaguna nool oo ayaga laftirkooda hadii dhibaatadoodu gaarto ma fahmaysaa marka ilaahay igama dhigo ushi muslimka iyo lagu garaaci lahaa dadka qaxootiga aad baad ma dareemaya kiiskan kiis culus weey laakiin Soomaalidu way iska dhayalsanaysaa aad baan ku fahansanahay in deeqa in markaad hadda horta waxaan ka anigu markhaati ka ahay inaad tahay gabadh aad iyo aad u dhowrsan dad badan baa waxay ku leeyihiin balwaday leedahay waxaan ka qirayaa inaad balwadaha aanad dadka ku wanaagsan aanad ahayn amaba yaqaana waana dad darisaho intaa wada socday oo nolol fara badan wax badan dadka waxay yaqaanaa aad iyo aad taas waan kaaga markhaati kacaya qodobka aan haddaba aan jecelahay inaan ku weydiiyo ee kale waxa ay tahay deeqa comment fara badan baa laga bixiyay haddii aanu qaar ka mid a aynu halkan akhrino dadka qaar waxaabay leeyihiin deeqi way kor bay usii qaaday waxyaabaha qaar oo xataa heer waxay gaadhay ay operationna isku samayso si ay xubnaha jirkeeda qaar ka mid a ay u muujiso quruxdooda iyadana commentiyada maxaad ka leedahay dalmaro horta odii qosasho may horta waxaan ku qoslay horta fleexanti ma moogo waan arkay waxaas ay meelaha ku qorqoreen laakiin taa waxaan ka leeyahay anigu wadankan waa deganahay runta haddaan ka hadlo barnaamijyo waxaan ka qayb galaa aad u tiro badan waxyaalo badan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayaan ka qayb galaa mar walba marka waxyaalaha aniga horta inta badan aan ka duulo oo aan runtii aan aad ka xooga u saaraa waxay tahay waxaan isticmaalaa hal kelmo oo ah ahow waxa aad tahay qofka aad tahay ahow anigu waan jeclaa qofka wax uu yahay xitaa waxaan jeclaa qofka markuu fikrad bixinayo tiisa inuu ka bixiyo oo dad kale soo eegan ma garanaysaa marka ahow waxa aad tahay fikrad anoo isticmaalaya ereygaas diyaanadoo kale waan ka waaniyaa timaha in jilcisiyo wax la marmariyo waa ka waaniyaa in dad kale lagu daydaysado waa ka waaniya qofku inuu qof fikradiis ku socdo waa necbahay runtii waana ka waaniyaa marka aniga waxaas ka waaninayo runtii inaan anigana operation isku galo ilaaha maxamed sameeyaan ku dhaartay nolosheeda inaan jirkayga operation lagu sameyn weligeena aan ku fakirin ilaaha baan ka magan galay ma baahanin qodobka ugu dambeeya iyadana aan ka weydiinayo videogaasi aad soo saartay dadku waxa ay leeyihiin waxa bilaabmatay oo ay deeqa afro ay wadada u furtay 2019ka wixii ka dambeeyay iyo gudihiisaba in la arki doono dad aad u tiro badan oo videoyo hit ah oo dadka ay aad uga qayliyaan soo saari doona miyaad u bilowday markaa miyaad dareemaysaa kelmadaas ما وما بلابن inaan u bilaabana mar raba sababtaa waxaan anigu horta mar walbaba u taagnaa oo aan jeclaa inaan khaldan mar rabo waxaan u taagnaa waxay tahay waa dhaqankayga waxaan u taagnaa waxay tahay waa qadiyadeyda anigu aan leeyahay taasna waa diintayda taasna inaan khaldo oo tusaale xun u noqdo no ma noqonayo mana rajaynayo runtii haddii ay qaar soo saaraan maxaad kula hadday soo saaraan waxaan kula talin laba la iska daayo usho anay ugu dhacday aniga ha igu ekaatee idinkuna ha israfinayaan soo laydii rifine meeshaan waa la israfayaa taasaan dhihi lahaa kaliya mana rajaynayo sida kale kaga fiican saana hadda rabaa hadda kadib inaan wax ku soo saaro wallahi sidii dacwadii la yiri maxaa ku baray baa la yiri dayoy xageed ku baratay cadaaladda masay tir isha cali ka laalaada marka imka waxaad leedahay usho anay ugu dhacdo si fiican la la isha cali ka laalaada ku qusqaatay way usha deeq afra ku dhacdaa ku qusqaatay waa qolada isla videoya nooc kala soo saaray ma malaynay ugu dambeyntii waa naxyaaba dararka qodaxsleed ama lagu yiraahdo tiiba oo horseeday deeqa aad baan ku salaamayaa kaagana mahadcelinaya inaad waraysigan macaawa halkan nagu siisay ugu dambeyntii deeqo maxaad kusoo gabagabeynaysaa waraysigeena kooban ama aad leedahay dadka ku daawanaya iyo dhammaan taageerayaashaada intaba dalmarow dadka horta i daawanaya dhammaantood waan salaamayaa sanad wanaagsan baan leeyahay sanadkii cusbaa waa inoo soo socda dadka laakiin fankayga ku xiran waxaan leeyahay salaan mugweyn oo baaxad weyn baan digu salaamay si gooni aan u salaamay dadkaas dad kale waxaa iska jira soomaalidu dhinacay u badan yihiin ahoo runtii aan aad wax u hubsan qoladaasna waxaan leeyahay saaxiibayaal ilaahay idinkana hayd soo hanuushee wax hubsada
wax walba xogogaal ka noqda waxaad aragtid ha xukmin qalinka ha u qaadanin hubi maxaa la yidhaha xogogaal noqo baar wixii dadka wax weydii hala soo boodin dadka ha xugminin ixtiraam iyo wanaag iyo kalgacayl iyo walaalnimaan isku leenahay haddaanu dadnahay bini aadanimada horta tii ilaahayba intaan la gaarin soomaalida bini aadanimada lumisay war bini aadanimadu waa beeska ugu horeeya taa dhis fahmaysaa intaasaan kusoo gabagabayn lahaa walaalo aad iyo aad baad umahadsan tahay deeqa afro oo barnaamijka caawiga la qayb qaadatay oo aan leeyahay deeqa aad iyo aad baan ku salaamayaa inaad barnaamijka igala qaadatay thank you very much dalmar walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaa tahay walaal jira waxaa tahay walaal aad u qiimo badan runta haddaan ka hadlo damiir fiican baa tahay runtii karti badan intaas waxaan ku leeyahay noolow walaalahay waxaan ku iri halka sidaan walaalahay u jeclaa oo kale ku jeclaa halkaasaan ka jeclaa qalbaan kaasi jeclaa runtii aad iyo aad waa saaxiibad qaaliya oo runtii aan uga mahadcelinay barnaamijkeena caawiga la qayb qaadatay deeqana waa taasoo waa idin cadaysay videogiina waa laga saaray baad mari u tiri video allah thank you dalmarow aan sii dhamaysto video horta waa laga saaray wiilkii safar buu galay isagoo safar galay maan israadin waqti bay nagu qaadatay runtii laakiin aakhirkii alxamdulilah waan helay videogiina waa laga saaray videoyada dambe kale dadka gashaday waxaan leeyahay walaal iska tuuro waxba idiima tarayaane iska tuura waa ka codsanayaa waxaan kaloo dalmarow aan sii codsanayaa waxay tahay dad waxaa jira pages samaystay deeqa afro ah anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse oo soo gaaban keliya ayaan leeyahay page baa waa dhexe wiilii sameeyey pagekaas bil ka hor baa ugu dambeysay in wax lagu sheer gareeyo waxaan hadda siyaacaya oo meelaha maxaa la yidhaahdaa xaggan baqaar waxaan arkaya leentay sawiradeeda soo qaataan waxa idiin soo wadaa ka daran yaa isgaaray walaal waxaan walaal dadka ay ugu dirina iska tuura iska dhilad gareeya iga balooga dadkuna waxaan leeyahay caawiyo sidii beejadaas oo aniga imatalayo beenta loo tuuri lahaa youtube-yadana loo kala tuuri qof kasto anigu horta wayda cafiyey laakiin iska bixiya youtube-yada qof kastoo youtube-ka gashatay iska bixi haddii kale cafiska qayb la soo noqonayaa oo ku dacweynaya aad baad umahadsan tahay waa facebooka deeqa oo dad badan youtube-yadaba dhammaantood iga saara wixii hore bik waxaan soo wadaa ka daran bay ku qorayaan ha maya dee xitaa fanaaniinta caayayaan waxay leeyihin blaaye aniga yaa khatarsan tartaba yani meelahan waxaan aniga iga suurta ma qof mateli karaa qof ma mateli kara aniga ma mateli kartaan aniga hadda maanta dalmar ma mateli karo leesma mateli karo marka dadkana waxaan leeyahay markaad aragtaan qof oo wax qoraya walaal dadku waxaad moodaa mararka qaarkood Soomaalidan waxaa israa tolo maxaa ka hore ka qayb qaadanaya ma isdhahayaan ma qofkiiba ma qof kala war waxaan fanaaniinta meelaha la carcaraya ma ahan iyagii anigu horaan ka gartaa fur gudaha gal arag inaga daaya walaalayaal waxa aad iska hor carcaraysaa iga daaya aniga ma aha anigu waxaan leeyahay deeqa aadan muuse xataa deeqa aadan muuse samaysteen afro iyo real iyo gadaal ka raaciyeen magacuu isbedelaya uu ka ogolaanaya facebook ma ogtaa aniga kayga page-kayga bil ka hor baa ugu dambeysay oo wallaahi oo bilaahi in wax ku sheer gareeyo iga daayay dadka ay ku dirineen hadaan ku jirin aad baad umahadsan tahay daawada halka waxaan ugu dhamaaday waraysigii koobnaa وأنا أوري دلمر يدقى أفرو يقلق قاعدة برنامجك سيدا أي نبت قليل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.